si looga jawaabo dhacdooyinkii ka dhashay dagaalkii safeenka ahaa oo sagaal ka mid ah mar qura geeriyootay halka 15 kale loo dilay aana bini'aadanimada ka fog waxaase intaasi dheera foolxumo kale sida dhac barakac iyo kufsi intaasi oo dhan waxa ay ka dhaceen magaalada hadda xasiloonidoodu ku jirto gacanta militariga kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida daaha qarsoon ee dhibaatadaasi waa isbaaro iyo kicinta maleeshiya beeleedyada iyaga oo ka helaya dhiirigelin foolxun hub iyo hanti saraakiil militari wakiila ka kala tirsan koonfur galbeed iyo hirshabeelle maamulka Wanlaweyn ayaa ka qaatay kaalin muuqato horinta colaadda mana jiraan ciidamo boolis ah oo xakameyn kara dhibaatadii ka dhacday Wanlaweyn guddi isku dhaf ah oo ka kooban dawladda dhexe iyo kuwa koonfur galbeed ayaa 7 bishan gaaray Wanlaweyn waxaa fursad kala madax bannaan la siiyay dadka kuwooda waxgalka ah ee ku kala irdhoobay colaaddii foosha xumayd halka 9 bishan ay wada fariisteen wada dhaqameedyadii beelaha walaalaha ahaa kadib cadaadiska dawladda dhexe ee Soomaaliya kulamada gaarka ah ee dhinacyada waxaa barbar socday qoraalo cadeemo ah iyo baaritaanada guddiga isugu jira xeer ilaalinta iyo saraakiisha baarista amniga booliiska dadaal dheer kadib xabad joojin ayaa dhacday shaqsigii hadda kadib jabiyana kama tirsan qabiil waxaan loo ciqaabi doonaa dambigiisa gaarka ah dib u dejinta shacabkii barakacay mamnuucidda hubka shaqa ka joojinta gudoomiyihii degmada oo ay hore u soo wadeen guddiga isku dhafka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida hogaaminayso haddana waxa uu ku jiraa habraaca baarista dacwada haddii ay ku cadaatana waxa uu wajihi doonaa maxkamadda awoodda u leh in hay'adda dambi baarista booliiska CID-da ee galdacwadeed ka dhan ah wakiilada koonfur galbeed iyo hirshabeelle furaan kuwooda ka qayb galay mashaqadii ka dhacday Wanlaweyn in la kaxeeyo gudoomiyii degmada Wanlaweyn oo shaqada laga joojiyay Maxamed Siido Cabdiraxmaan isla markaana ciidanka booliiska Soomaaliyeed baaris dhameystiran ku sameeyaan doorkii uu ka lahay gabadfaladii ka dhacay degmada Wanlaweyn iyagoo natiijadii ka soo baxda u gudbin doona maxkamadda awoodda u leh in hay'adda baarista dambiyada booliiska Soomaaliyeed CID-da ee qaybaheeda Muqdisho Baydhabo ay furaan galdacwo ciqaabeed oo lid ku ah xildhibaanada kala ah xildhibaan aadan cabdi faarax kala dira oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle 2 xildhibaan Mayo Mustaf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed 3 ex xildhibaan Maxamed Taraafik oo ka tirsan xildhibaanadii hore baarlamaanka Koonfur Galbeed kuwaas oo baarista hordhac ah ee la sameeyay lagu ogaaday inay jirto baahi loo qabo in cadeemo laga qoro sida daraadeed waxa lagu wargelinayaa xildhibaanadaas inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tagaan xarumaha baarista iyadoo maamulada ay ka tirsan yihiin laga dalbanayo inay diraan si loo dhameystiro baarista guddiga Sargaal ka tirsan militariga ahaana banduulihii guudada 7 iyo dagaal ooga kale ayaa looga yeeray maxkamadda ciidamada qalabka sida sida uu ku dhawaaqay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed inuu hor yimaado xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida gaashaan la xooga dalka Salaatifo oo ah abaanduulaha guutada 7 si su'aalo loogu weydiiyay qaybta uu ka lahay gabadfaladii ka dhacday degmada Wanlaweyn 8 in ciidanka xooga dalka oo gacanta ku soo dhigo isla markaana uu hor keenay sharciga Cabdi Nuuno Afweyne oo ah horjoogo ka ah maleeshiyaad ku dagaalamay degmada Wanlaweyn Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Wanlaweyn